الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxay nagu soo dhow Ramadaan. cidii Ilaahay uu gaarsiiyay waqti yar oo kooban baa ka dhiman, ugu badnaan 3 maalmood. waxay noo soo urayeen nasiimkeedii iyo carafkeedii iyo udgoonkeedii baynu dareemaynaa qofkii alla waafajiyo. Ramadaan waa fursad aad u qaaliya oo qofka cibaadada u heelani uu jeclaysanayo inuu ka naxayn. waxa u baahan inaynu dib eegno sanadii hore iyo ramadaanadii hore, inta dad inala joogay ee ehel leh, asxaab leh, macaariif leh. dad dib u tiriso waad yaabi. alaabta baad iska soo xidhxidhanoo aduguna ama inaguna kuyugaa baynu isu sii diyaarin doonaa, weliba ayaamahan dambe sida loo soconayay. waa cashar iyo cibro, wax lagu cibro qaatana geerida u mudan. qofka isag joogteen ama isku ag tukanayseen ama isku shir fadhideen ama isku xaafada haydeen, markuu libdhuu qarsoomaanu soo noqonayn, adigu maxaad sugaysaa? meeshii haddaba mudnayd ee laga sahay qaadanaya waa Ramadaan. waxaa la sahay qaadanayaana waa camal ee daaraha iyo dunyada maaha. marka fursadda qiimaha badan ee qaaliga ah, fadligeediiyo waxa laga faa'iidayo baynu ku soo koobsan doonaa insha Allah 8 arrimood oo inagu filaan doona. arrinta u horeysa waxa weeye bishani waxay leedahay khusuusiyaad, waxyaabo dheeraada. bisha dhexdeeda insha Allah haddaynu gaadho waynu ka sii warrami, laakiin ilaa 7 arrimood ayaa xadiidkan uu sheegaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusay xadiidkan oo saxiix ah dadka isagoo u bushaaraynaya, bishana tarxiibinaya oo soo dhoweynaya. wuxuu odhan jiray qad jaa'akum shahru ramadaan, waxaa idin yimi bishii ramadaan, shahrun mubaarak, waa bil barakaysan. markaa ramadaan kariim iyo ramadaan mabruuk midna inaan la odhanayn baa xadiidka laga faa'iidaysanaya, la odhanaya ramadaanun mubaarak. nebigaa magacaa u bixiyey. mabruuk iyo mubaarak way kala duwan. mabruuk waa waxa fadhiyaa la idhaah, laakiin mubaarak waa shaygii barakaysnaa. mubaarak bikasri raana maaha. bikasri raa haddii la akhriyo la idhaha mubaarak waa qofkii wax barakaynayay. marka waa bil barakaysan. kataba allahu calaykum siyaama, waxyaabahay dheeraadka la ti waa inay barakaysan tahay, waa in soomkeedu uu waajib yahay, oo bilaha kale taa way kaga duwan tahay. bilaha kale soomkoodu waa sunni. fiihi tuftaxu abwaabu ljanna, albaabadii jannadaa la furayaa in ka badan intii hore. wa tuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim, naaraha albaabadoodiina waa la xidhayaa. wa tuqallu fiihi maradatu shayaaiin, shayaadiintii madaxa adkaa dhibka inagu haya cibaadada inoo diidanaa dagaalka adkaana waa la xidhayaa. lilaahi fiihi leylatun khayru min 1000 shahr, ilaahay wuxuu habeenkan ummadda u dhexdhigay bishan u dhexdhigay habeen ka fadli badan 1000 bilood. man xurima khayrahaa faqad xurim. nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, bishan qofka laga calaf seejiya, laga qadiyo, ee loo diido, een loo qadarin khayrka ay leedahay faraha badan, kaasi waa calaf go-ay. marka arrimahaas oo dhan buu nebigu ku yaboohay calayhi salaatu wasalaam. marka intaasoo arrimood kol hadday bilihii kaga duwanta inaynu isha si gaara ugu haynaa oo inuu han weynaanaa wax weyn wey. qodobka labaad waa sababaha lagu dhaafo dembiyada. innagana waxay noogu darani waa dembigeenna, oo cid kaloon ilaahay ahayn oo inaga dhaafaysa aanay jirin. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid waxa uu ku saxiix muslim ku sugan: alsalawaatu alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun majtunibat alkabaa'ir. salaadaha 5 ah iyo 2 jumce iyo 2 ramadaan inta u dhexdhexaysa ilaahay wuu ku dhaafaa dembiga. macnaha ramadaantii hore wixii ka dambeeyey ilaahay tanuu inaga dhaafaya insha allahu tacaala. dembiyada waaweyn haddii laga durka buu nebigu yihi, dembiyada waaweyna waynu ka toobad keenaynaa.
arrinta saddexaad ee bishani fadli ay leedahay si aynu ugu dhiiranayn u jeclaysanno waxaa ka mid ah inuu soomkii noqonayo ilaahay hortiisa mid inooga ergeeya maalintaana aad baynu ugu baahannahay ilaahaynu hor taagannahay cid inooga ergeyso alla ergadeeda uu aqbalayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi xadiis saxiixa الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صومك يا قرآنك لبدا سبا أدونك وي أشفاعة قاضي وي أرجينيا إلهي بيوجي أرجينيا مالنت قيامة بدو اللي بقار كيسو دودا يايو صومك وحو لي إلهي وحن ودي ذي قفكا عندي سي يربيتان كيس قرآنك نوحو لي هاي ورددي بان ودي ذي هبين كيو رمبو آخرية يو يقصو تشيدي رسولك وحو لي صلى الله عليه وسلم فيشفعان ولا جاي يرجع أقبليه عمل كاس صالحين وإلهي يقول توصلين ويقول دوانا إن مركو إنه يرجعيه إلهي بقى أقبليه يرجده وحلقوا يدي شو قال يوي عبادة نيذا وحيلاذا ديراد والنبي الشجاع عليه الصلاة والسلام الضماء كد ذا عنك كوانا عسومت قاروا إلهي وفي ذنيا ما لنتو أوليادي سجنة الجينيو نبي واحد يقول عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحها جنة واحد كويا لا الباب لا يدار ريان وحكى لك كلية ذاتك صومك عنك كواه مركي قرانا كل ما ضانا والله حدا أنا السجارة يعسومي ما دام عمل كود وهامد خاصة أو سي خاصة يجي لهيون يسلو قاين عبادة فضل هذا وحى كبده نبي وحشة عليه الصلاة والسلام أما أن نراه إيه وهباري رسولك يملك الجبريل با عدة بيشن كعرف قوله كفى إذا يسوي ده أما الباص صدرنا كلو كعله ملقوا نبي عليه الصلاة والسلام وحوشة أو كيري صدح جرب وآمين ديري نبي آمين ده آمين ده قفك رمضان وصاق الشين سومين أما النبي محمد مغلان كسلين أما والد كيسيبا أنو صمفلين أيو لهاي ونار تجايها الله كفو جايو آمين ده نبي وانا آمين بول من لو يرجع ما كاسي وين كارقبه حديث كنا صحيح خبر ملاقي يمد نبي ماشي سر عيننا هولا ذاك بكتشرت قفك السنوى قف هلاك سماء الله ينقبيه له فضائل كبشن وحكم ذين وهي طريق عظيم إلى الجنة ووضد الله مرة جنة أصحابته رضوان الله عليهم الله كرر للنقدين رسول كنا وحي ويدين شرين وحي وكان يا إلهي رال النقشيس أي كهليان أما جنة أي كهليان هنكودا وينا هل كلا جايبا إنه وينا إنه آد وهم وينا الدنيا ذا يا رميه ذا يرير أصحاب أبي أمامة اللورنتي رضي الله عنه وأرضاه يا رسولك سأل ويداوح قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة أنا هلا الربان كويدينا يا عمل أنكو قال جنة بل ماذا عمل نوع عاصم كل دقاء ديب رسولك صلى الله عليه وسلم وصى قابيا وحول عليك بالصوم فإنه لا مثل له وحد كد ذا صوم كوحلة مدي بمتشريه أصحابي قابي وما الله يدعو وحوها لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به الضيف أنت وحي كدن بين مالك قرقي سدب لقوا ما أرك شرين معناه ذو حوي الدب مو شدن شرين مارين ولا مسوى ملان شرين مركب مرتيوتي ما دمو يعني قدام مرتدي وحي لا ضاي إلا ما موصى وحلاكري ولا سورية دان مرتدي أسئلة شوقي صوم كيسو ودن شرو هبين وبوح كرسنشري ده وحو كبل قاضي وحو النبي عليه الصلاة والسلام ويديه وسجنا وشاقي صوم كيف فرل كاي كي سنة لبض أبوان نقرية صوم كوا كفارة للمخالفات ولحنث اليمين دارتا علوس مركا وأدونكو فلين كروايو وحيابها لقو فردامين أيو كمديها صوم إلهي كرافية قفك دارتا سورة البايدة إلهي وحكو حسين بحيار راشن إيار دار لحيد انت بهدوايو إلهي وحولي فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم حيواه رهدي ويذان
waxaa ku dadaashaan kafaara gudka dhaartu inuu noqdo 3 maalmood oo qofku uu soomo dhaartiina waxa idinka salabaynayo idinka safaynaya oo ilaahay idinkaga dhaafaya soomkaas baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadliga cibaadadan waxa kamid ah qofka ku dadaala annahu yakunu min as-siddiqiina wash-shuhadaa waxa uu kamid noqonayaa dadka ugu fadli badan adoomaha ilaahay kuwa runta badan iyo kuwa naftooda qoodhay ee dagaalka gaalada ku shahiiday liiskaas uu ku jiraayo kuwaas uu la mid yahay mushaara uu nabigu nasiiyay calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay hadiidkuna waa saxiix عمرو بن مرة الجهني الله كرر للنقضاء يا وحد نبى النبي قوي عليه الصلاة والسلام نكاسي السؤال بو النبي قينو ويديه وحوليها أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وحد يقول أنت رسول الله هدان إلهي قراء أذنك أنك قراء ربي يا رسول هدان قراء وصليت صلوات الخمس شنت الصلاة أن تكده وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا دان كد ذلك أركان الإسلام كي توحيد كي صلاة دي سكدي صوم كي يسر شوقي هبين كي إلهي الله عبادي سنين تهدان كد ذلك بل أنا أقول قلدين كشرة تد بلن بفضل دينتو أيوشك تاه تد كان ليس كودا كدر ميان أن كويدي ديلنا يواكوي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوري من الصديقين والشهداء وحد كمت هاي dadka ilaahay quraanka ku sheegay cid la tamaniyo oo la jeclaado oo lagu yidiisho iyagu u fiican kuwa runta badan iyo kuwa shahaadada liiskooda ayaa raacaysa ilaahay wuxuu waman yudici illaaha war rasuul fa ulaa'ika ma'a alladhiina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa'i was-saalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqa illa la rafiiqana kuwaas u wanaagsan bulay qofka ilaahay adeecay ka tala qaatay nafta aan ka tala qaadan dadkaas uu raacaya jannada uu la galaya inahaas waxay ka mid yihiin fadaa'ilka bisha inagu soo aadan inagu soo foole aynu ilaahay ka filay inaynu ka sugayno inuu ina gaarsiiyo si nabad aynu u gaarsiiyo iyo caafimaad qab marka waxa kaliya inala gudbani waxa weeyaan inaynu guntiga giijasano oo bishan si wanaagsan aynu u waajahno soomkeeda iyo qiyaamkeeda iyo cibaadada qaybaha kala duwan in lagu akhriyo oo lagu dadaalo oo ehelka iyo ummadana lagu abaabulo sidii khayrka ay uga faa'iideysan lahaayeen waa fursad qiimo badan oo nafta lagu edbinayo caafimaadka ruuxda iyo jidhkuna uu ku jiro si ay u tamariso sanadka inta hadhay sahay wanaagsanna adoonku helo allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية يا الله اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة